السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaad ka dhageysanaysaan radio TV barbaarta City Soogaan oo aad kala socon doontaan ama ka dhageysan doontaan ama ka daawan doontaan ciwaanadiisa kala duwan Facebook iyo YouTube-ka. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa taariikh nololeedkii marxuumkii Ilaahay u naxariisto Ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiye Maxamed Cute Roble geesigii qaran aba Colonel Cute aad u taqaaniin. barnaamijka maanta waxay la daadiinaysaa Maalika Jibriil, waxaa kaloo barnaamijka la daadiinaya Xuseen Buux. barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah khadka telefoonka oo aan ka wareysan doonaa taariikh nololeedkii marxuumka Faarax Cute oo walaalkii ah oo ehelkiisa ah ayaan ka wareysan doonaa taariikh nololeedkiisii. barnaamijka waxaan u wareejinayaa Maalika Jibriil. kusoo dhow Maalika. tahay علي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون horta horeeya marxuumka geeriyooday walaalkeena محمد عطر روبلي waxaan leeyahay ilaahay naxariistiisa ha ka waraabiyo walaalkay maxay hayday Faarax Cute Roble waxaan leeyahay inaad tibriyo iiban Faarax maanta waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino walaalo Allah naxariisto marxuumka محمد روبلي محمد عطر روبلي waa walaalka horta da'da sideed maxay hayday ilaa intee buu ka weyn yahay marka faamiga aad tihiin inta aabaha dhalay halkeedka adigu isagu halkuu kaga jiraa adigu halkeed kaga jirtaa waa kow iyo taariikh nololeedkiisii walaalo Allah naxariista marxuumka Maxamed Cute Roble ilaa inteebaad wax looga sheegi kartaa taariikh nololeedkiisii ayaa horta maanta halkan maxay hayday aan rabnaa inaan ku xusno walaalo waxqabadkiisii iyo maxay hayday geesinimadiisii waxaanan rabaa hadalka waxaan u wareejin doonaa Xuseen oo isaguna haddii su'aal ku darsanayo aan u wareejin doonaa waxaana leeyahay marxuumka ilaahay naxariistiisa ha ka waraabiyo kullu daaqal ilaahay dadka maxay hayday intii dibata ha u naxariisto Xuseen adiga kula inaad aad baan mahadsan tahay Maalika iyo علي iyo abwaan Faarax aad baan mahadsantahay nimantii abwaankana waan soo dhaweynaa Faarax sidaas la mid ah waxaan aniguna maaragtay halkan fursadda uga faa'iideysanayaa inaan maaragtay tiirka weyn ee naga baxay Allah yarxamu raahimiin Colonel Maxamed Cute Roble inuu ilaahay u naxariisto inuu qabrigiisa nuuro isla fursadda waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano in aan maaragtay taariikhdiisa aan soo koobno oon maaragtay taariikh dhaxal inaan uga reebno maaragtay intanaga kale ka hadhay si ayna u lumin taariikhdiisu waa ku dheeraaday waxaan su-aasha Maalika already waa yaaba noo dhamaystirtay waxaan u wareejinay walaalkay Faarax oo insha Allah noo faahfaahin doona taariikh nololeedkii colonelka Maxamed Cute Faarax Cute Roble الله يرحمه الراحمين كسو دو فرح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل نفس من دائرة الموت. وأنا السلام يا بهياشة راديو يتيفي يا سيتي سوغاد بربارتي سيتي سوغاد daadiyaasha barnaamijkan taariikh nololeedkii Maxamed Cute adu garateen in waxa taariikhda dadku ay wada leeyihiin ani walaalkeen buu ahaa laakiin wuxuu ahaa shakhsi kulli la wada leeyahay wixii taariikhdan ee qaranka ku saabsan danta guud wixii cid wax ka qabata waa qof la wada leeyahay intaan su'aalahiina u gelin waxaan u mahadnaqayaa dadkii na soo taxshiyeeyey nala qaybsaday maalmaha murugada leh shacabka reer Djibouti boqolaalka qof ee kumanaanka ku socda ee iminka kunka ku socda oo ka hadlaya warisgaarsiinta bulshadu ku xidhiidho aad baan nigu mahadnaqaynaa ducadiinana ilaahay ha u aqbalo marxuumka halkan waxaan ku bilaabayaa
qadrigan anoo qirihayaan qoomameeyaaye qalbigan ku ooya anoo qaylo karihayne ka qabooji ciidiya qabriga qaadir baa tahaye ilaahu ka qabooji ciidiya qabriga tix nin abwaani uu soo diray oo halkan ku qoran ayaan doonayaa inaan hadalkan ku furo oo la idhaahdo abwaan jaamac aljawaari wuxuu yihi abwaan jaamac maxaad abidkaa dadaashay maxaad qarankaa u daashay maxaad shacabkaa difaacday maxaad daal iyo dhib mudatay maxaad soo dirirtay aabbo maxaad duur keliyu cawaysay maxaad cadowgaa la dirirtay maxaad dibadaha u dhooftay maxaad siminaaro duubtay maxaad dibloomyo keentay maxaad dugsiyada askarta maxaad darajooyin qaaday adoo diintaa u dhowran adoo dhaqankaa daryeeli adoo calankaaga duuban maxaad dibadaha wareegtay adoo beledkaa u daali adoo shacabkaa difaacan maxaad duudaha ku daashay maxaad door weyn cayaartay maxaad duniyooyo dhan baratay inaad tahay ruux damiir leh dadkaagu muxuu caddeeyey maxaad dulmigii ka diiday dalkaagu inuu wareego maxaad diidood ka dirirtay muxuu dhiigaagu daatay dabaylaha saro dushooda adoo soo daadegaya maxaad uddo weyn ku degtay badweynada keli dabaashay maxaad cadowgaaga dooxday muxuu cimrigaagu daashay maxaad calankaa cisaysay maxaad cadowgaagu maaday maxaad ciidani u dirirtay dhulkaagu muxuu ciseeyey dadkaa ku caleema saaray utow sharaf maxaad la degtay waan uga mahadnaqaynaa abwaanka jaamac aljawaari oo gabaygaa soo diray maxamed cute wuxuu dhashay su-aalihiini haddaan usoo noqdo su-aashii maalikay weydiisay haddaan usoo noqdo halkuu kaga jiro reer cute iyo anu halkan kaga jiro inta noo dhexaysa maxamed cute wuxuu dhashay 1953 waxaa loo qaaday madrasad lagu barayo dhalinyarta da-da yar qur-aanka oo waktiga miyiga ku taallay markii qur-aankii uu bilaabay allahu naxariiste sheekii qur-aanka u dhigay wuxuu yihi ninkan in barashada ku fiican weeyin ha loo qaado magaalooyinka hala geeyo waa 8 jir baa markaa lagu sheegay waxaa loo qaaday magaalada dirdhaba adeerkay baa qaado muse roobe la odhanaya allah yarxamu adeerkay kale oo faarax roobe la odhanaya isagana allah yarxamu waa uu ka diiday oo wuxuu yihi ninkan waaba curadkii reerka caruur kaloo hadda bedilayso xoolaha eegaysana xoolo badan reerku lahaa lama qaadaya lama soconayo halkaasay ka bilaabantay taariikhda maxamed cute maxamed cute isagoo qur-aanka allahu naxariistay qur-aanka ku fiicnaaday subax baa arig loo diray arigii iyo xoolihii uu iskaga yimiday adeerkay baa idhi maxaad xoolaha uga imatay wuxuu yihi adeer xoolaha ilaahay baa i diiday qur-aankan baranay daa waktiga maxamed da-diisu 10 ma dhanno kolkuu sidaa u hadlay waa la qaaday maxamed diridha baa la geeyey madrasada sheekh cabdillaahi ayuu bilaabay qur-aanka iskoolkana dugsiga hoose halkaabuu ka galay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iyo qur-aanka waxbarashadiisii diridhaba ayuu ku dhamaystay diridhaba 1994 dalka etoobiya isbedel ayaa ka dhacay boqortooyadii Haile Selassie yaa la afgembiyey
Hayle Salaase intuu diray waxaan wuxuu caan ku ahaa ciyaaraha fudfudud afar iyo lixdan kiiba ka wada Afrika ها فارحوا ترى waxay taariikhda sax waxa tiri 1900 iyo waxa tiri 4 afar dootarkii waa ku ujeeda afar dootar صح maxamed wuxuu caan ku ahaa ciyaaraha fudfudud siiba waranka jaafilowga la yiraahdo jaafilowga Faransiiska oo warantuurka gobolka Harargey oo dhan isaga u qaaday maro champion ka ahaa boodada dheerna wuxuu haystay dirdaba isaga u haystay sidoo loogu sheegay 1974 dhalinyartii kacday ee Hayle Salaase diiday ayuu qayb fircoon kaga jiray Maxamed Cute oo dirdaba ka asaasantay dhalinyarta Samaash ayaa la oranayay kacaan bay ka dhigan tahay kacaankii dhalinyartii dib baa loo qabtay Maxamed Cute iyo dhowr dhalinyar ah tubaneeyo dhalinyar oo kale ay ka mid yihiin Allah u naxariisto rag badan ku dhintay hadda ay ka mid ahaa سعيد همال مصطفى علي فؤاد محمد عبد القادر الشيخ حرسي رج صدح يطبنا او صدح يطبن او ريدير لبا oo ka soo jeeda beesha Ciise ayaa waxa lagu xiray meesha la yiraahdo Karamarda oo jirjigo u dhow ayaa lagu xiray waragii Samaashka ah waxaana la xiraya ciidamadii qalabka siday oo kolkii horena adeegsaday sidii Hayle Salaase u ridaan ayaa markii dambe markii taliskii ay ka horjeesteen dhalinyartii waa la xiray dhalinyartii halka la xiray ayuu ku jiray way jabsadeen xabsigii bay jabsadeen way ka baxsadeen jijiga way ka baxsadeen waxay galeen Cabdulqaadir bay ka galeen 1904 aakhirkiisii ayaa waxay galeen Soomaaliya galeen Abdulqaadir markay ay galeen waa xarig baa gunta la dhigay waxa la yiri jabsiin baa tii xabsiga ayaa lagu riday gebiyogiiba waxa ka soo noqday wiil raahan dagaalaha yaa la soo daayay anwan iska noqonaya bukaan baa lagu sidaa ninkii soo noqday aduu ala kulli xaal dagaal ku dhintay intoodii kale waxa loo qaaday Soomaaliya loo qaaday Soomaaliya markii loo qaaday xarig baa gunta la dhigay waa la xiray ragii oo jaajuusin baa tiibalay jaajuusin baa lagu xiray muddo markay xidhnaayeen gabadh baa jirtay u doonanayd nin kamid ah raggaas Allahu naxariisto ninkaana uu dhintay Cabdulqaadir Sheekh Xasan baa la oranayay gabadhana way dhimatay xaawa Allahu naxariisto abtigeed wuxuu ahaa Farax Faras Muqdisho iyada tagtay Farax Farasna wuxuu ahaa golaha sare kacaanka ay ku jiray raggan oo xiran oo meel aan lagu sheegin ayay gabadhaas tagtay dadaalkaas oo deentooda horta iyada lahayd xabsiga laga soo deynay iyada lahayd waa loo yimid ayagoo xabsiga ku jira waxa la yiri gala ciidamadii qalabka siday Soomaaliya gala ayaa la yiri dagaalka lagu qaaday Itoobiya qayb ka noqda way diideen waxay yiraahdeen anagu waxaan galeynaa ciidamada xoreynta xeebta Soomaaliyeed baan galeynaa oo Djibouti ahayd markaa falsaasta waa laga diiday xabsigii waa laga soo daayay xabsigii markii laga soo daayay waxaa dhacday inay qodsiga markay dirteen la diiday inay mudaharaad ku sameeyeen magaalada Muqdisho oo fiila Soomaaliya meesha la hor fadhiisteen afisyoon u galaya leeyahay Maxamed Jaabar waqtigaas uu marxuumku noogu sheegay afisyoone aqalkiisaan hor fadhiisanay buu yiri annagoo dhalinyar badan ah intii xagga Itoobiya ka imatay in Djibouti ka tagtay oo ay ku jiraan wariye Abubakar Muuse ayuu iga sheegay ragii markaa joogay Axmed Bitoon loo rag Djibouti ka yimid inta ka imatay dhalinyar wax baratay halka joogta waayo jabada falsafa lama doonin rag wax bartay oo ka soo jeeda beesha Ciisaha inay ku soo diraan hal doonayay askartu inay ahaadaan dadkeena laakiin madaxduna ay ahaadaan ciidamada Soomaaliya halkii Siyaad Barre yaa la yiri aqalkiisii marka oo fadhiisteen afisyoonada fadhiisteen u yaabay Siyaad waqtiga Siyaad cid diidi kara ma jirin oo diidi karta ma jirin
siyaad baa 4 qof baa lagu geeyay wuri oo ka mid ahaa waxaan nidhi wuri waxaan doonaynaa inaan ka qayb qaadano xoreynta Djibouti horta xoreynta Djibouti inaan ka qayb qaadano ayaan doonaynaa ciidanka baan doonaynaa oo aqbalay odaygii Allah yarxam siyaad bar oo aqbalay intooda badan kulliyadii jaalisiyaad ayay galeen wuxuu ka mid noqday kuwii kulliyadii jaalisiyaad galay ee ciidamada qalabka sida xidiglayaal ayay kaga soo baxeen 76 عمليات وريه oo ka qayb qaateen waxa kamid ah afduubidii safaaradii Faransiiska ee Muqdisho ku taalay waa farno iyaga kamid ay afduubeen dawladda Soomaaliya oo dusha ka ilaalinaysay ragaas oo lagu badilan doono ragii Umarada la oranayay Umar Usmaan Raabe iyo Abdullaahi oo ku xidhnaa xabsi daayin ugu xukunaada gumeysi Faransiiska ragaas oo lagu eedeeyay inay raasaaseeyeen madaxweynihii mustacmarada Djibouti oo waqtiga ahaa Ali Arif Burhan iyo raasaaseeyeen oo xabsi daayin baraga ku xukumayeen waxaase lagu badishay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Muqdisho ee la afduubay iyo cadan la isku weeyaarsaday arintii halka ka bilaabantay xalad utay isagii dhalinyartii kale kulliyadda jaalisiyaad ka soo baxay waxay soo galeen gobonimadii Djibouti markii ay qaadatay 1977 iyagoo ciidamadii saraakiisha ciidamada hor socotay ay soo galeen dalka Djibouti intaas waxaa ku soo dhan taariikhda Soomaaliya Djibouti markii ay dhalatay maxaa dhacay Djibouti markii ay dhalatay waxaan wuxuu ka mid noqday ciidamada madaafiicda goobta la yiraahdo Abdisaawi imka loo yaqaano ayuu ka mid noqday ciidamada goobta isagoo jooga ba waxa dhacday 1900 gobonimada laba habeen laba sano la xuso sanad gurihii labaad ee gobonimada 1997 ba weerar lagu qaaday waqtiga waqooyiga waxa ka jiray weerar lagu qaado ciidamada xeriyahooga haday yooba ka tahay haday Qur'aan ka tahay haday randa tahay meelahaas waa la duqeyn jiray jawaab baa ka jirtay waqtiga waqooyiga waxaan xasuustaa habeenada kamid ah inuu meelaha labadii habeennimo xerada Qur'aan ka leeyahay markii la weeraray uu yimid aqalka loogu yimiday Allahu naxariistee liitna Amir Cadaawe oo waqtiga haystay ciidamada sirdoonka Provincial Bureau waxa la yiraahdaa haysanayay oo sirdoonka iyo dhamaan waxaas isku ahaa Ahmed Allahu naxariistee Amir wuxuu dharka gasho way baxeen waxay saacadu markaa ahayd gudnimada la xusay koodii habeenimo meelahaas ahayd maguma soo noqon uu ka baxay wadanka magaalada uu ka baxay waxay u baxeen noorka ay u baxeen amaliyaadkii duka ka dhacay ilaa 80kii wuxuu joogay noorka ayuu joogay soo ka qayb qaadanayay nabad soo celintii gobolada waqooyi ee dalka nabadii marka lagu soo celiyay Maxamed Cute waxa dacwad ka keenay goboladii waqooyi madaxdii ka soo jeeday waxay yiraahdeen ninkaasi dadka iyagii bandow uu ku soo rogay dacwad bay soo gudbiyeen waxa la yiri hala soo qaado hala soo qaado Maxamed Cute maxkamadda la mariyo maalin wuxuu soo dhaadhacay 80kii bishii September maalin khamiis ayuu soo dhaadhacay axadna wadanka ayuu ka dhoofay waxa isla markii loo diray madaxweyne xasan guleed wuxuu qaraar ku qaatay Allah yarxame in courses loo diro commandos loo diro oo uu tago wadanka Faransiiska waxbarashadii u horeeyay oo dugsi military oo sare oo dalka ka baxsan oo kulliyadaha Faransiiska halkaas ahayd école d'application soo kala Montpellier ku yaala ayuu 2 sano halkaas soo joogay
iskoolkii markuu ka soo noqday 82 aakhirkoogii 82 aakhirkiisii waxaa la aasaasay 1983 ciidamadii dalaadaha kusoo boodayay isaga ayaa hoggaanka u qabtay oo noqday taliyadii koowaad oo ciidamadii dalaadaha kusoo boodayay waddankeenu lahaa yeeshay sidoo halkii taliskii ciidamada dalaadaha kusoo booda uu ahaa hoggaan intaa dhexdeeda wuxuu tegey sanadihii 84 iyo 85 wuxuu tegey istaash 2 sano ahaa ayuu u baxay oo ahaa airborne troop istaashka la yidhaahdo ciidamada la yidhaahdo 180 waa ciidamada maraykanku ku dhaarto maraykanka iskool ku yaala oo ciidamada commando parachutiska dalaada kusoo booda ayuu 2 sano ku jiray Texas ku yaala Houston markuu soo dhamaystay hawshii ciidamadii dalaadaha kusoo booda ayuu sii socotay ciidankii oo ciidanka waddanku ku dhaarto qaybaha ugu muhiimsan noqday dalka waxaa la soo gaadhay sanadadii 90kii crisiskii ka dhacay dalkeena oo ka dhacay waqooyiga dalka intay taasi dhicin crisiskaasi uuna dhicin waxaa ka dhacday Djibouti arrin cajiiba oo dadka reer Djibouti inay og yihiin intooda badan og yihiin yaan u malaynayaa waxaa dhacday in la yidhaahdo General Ali Meydal ayaa afgembi diyaarinaya afgembigaana waxaa sameynaya ciidamada dalaadaha kusoo booda ayaa sameynaya Ali Meydal waqtigaa waxaa jirtay inay dawladdii waqtigaa allahu naxariistee xasan alxaaji xasan guleed iyo cali meydal khilaaf ka dhex dhacay oo ahaa lacag kees dee baarn la odhanayo ciidamadu lahaayeen ayaa cali meydal lagu ashkateeyey inuu lacagtaa lunsaday lacagtaas cali meydal oo qaahira ku maqan habeenada kamid ah ayaa ciidamadii baaraan la iskugu yeedhay xerada kubadda waxaan ka sheekaynaa waa taariikh dhab oo dhacday xerada kubadda ayaa la iskugu yeedhay waxaa la yidhi ciidamadaasi waxay u badan yihiin reer hawlaqaaday u badan yihiin baa la u joogsadaa la yidhi qabiil waxaan u joognay in ciidankii qaranka loo joojiyey qabiil loola joogo habeenkaas ciidamadii halkaa kolkii loo joojiyey qabiil loo joogsada la yidhi 17 bay noqdeen walaaldoona 17 ayay noqdeen jifooyin kalaa ka badnaaday walaaldoon oo dhan kolka la isku daray waxaa la yidhi maxamed cutooda aqalkaagaa ka soo bixin ciidamadiina 6 meel baa la joojiyey 6 meel baa loo diray low iyo cadda halkay ka noqotay halkay raasdumeere ka noqotay iyo 10 meel loo diray 10 meel maxamed cutooda waxay aqalkaaga ka soo bixin marxaba kay taasi markay dhacday Ali Meydal qaahira ayuu ku maqnaa uu soo noqday lacagtii baa la xisaabiyey ciidamada anigu waqtigaa waxaan ahaa askari baan ahaa kabraara ciidamada waxaan galay 85kii lacagta 86kii waa laga bilaabay in laga gooyo kees baarna ciidamada ay lahaayeen qof walba loo geeyay lacagii baan loo xisaabiyey anigu waxa igu dhacday 240 lacag dhow la dhigay yaa igu dhacday kolka wax layga cunay ma jirto oo Ali Meydal wixii lagu lahaa lacag buu ka cunay ciidanka nin walba rag bay maliyuuna u gaadhay raggii saraakiishiisa sare good halkaa markay taagan tahay 1990kii markay taagan tahay oo ciidamadii 10 meel u kala joogaan min halkay xeradii baaraaga ayaa ilaalinaya markaa xeradii baaraaga oo ciidamadu ay degaayeen ciidan kale lagu wareejinaya waxa ilaalinaya dad shicib baa ilaalinaya askar gaari ma jooga askari gaarka ka qab laakiin waxa ilaalinaya dad baa ilaalinaya shicib yaa ilaalinaya xeradii ciidanku lahaa
toban ba meel la way u joogaan ciidamadii loowi cadaan laga bilaabay ilaa raasto meelo qaar baa sidii ku maqan oo iyagoo la isku keenin qabti ku dhacay dagaalkii anagu waxaan kamid ahaa kooxda qaranka kamid ahaa ee orodka cali sabiix baa kasoo dhaadhacanayay habeenkii kolkii ciidamada qabiilka loo joojinayay nin walba oo askari oo baara ah waxaa la yidhi hala isku keenay xarada kubadda caawa waa nimanay aniyo raggii ciyaartooyda wixii ku jiray axmed saalax baa kamid ahaa isagoo waddanka wadka ka maqlaa laakiin raggii soo joogsaday waxaa kamid ahaa aniga iyo cabdi biibi raggii ciyaartooyda arrintii markay halkaa taagan tahay tobanba guruba meel ciidankii la dhigay qaar galiila joogaan qaar geesdiir joogaan qaar yoobaki joogaan xuduudaha la kala geeyey ciidankii waa intii jaranka la xisaabinayay waxaa la lahaa marka hore ciidamadan reer bay u badan yihiin waxay samaynayaan mudaharad bismillah bagif bismillah waxay samaynayaan waxaan markaa dadku ay anaku aan arkay sidaa markay tahay 90kii la gaadhay dawladdii Ethiopia ayaa meesha ka baxday iyadoo la isku soo noqonay ciidamadii baaraha mid iyo meeshii joogaan 90 dawladdii Ethiopia meesha ka baxday dawladdii Ethiopia markii meesha ka baxday ciidamadii Ethiopia ee ka soo galay xuduudaha waqooyi dalka ka soo galay waa kuwii gudbay ee qaarna laga gudbiyey galiile laga gudbiyey 70,000 askari in ku dhow ay soo gashay qaarna galiile ku gudbeen qaarna waddankay ku hadheen qaarkii waddanka ku hadhay yoobaki iyo wax la dejiyay qalaafi agteeda kuwaas maxay ahaayeen ciidan asliyan kasoo jeeda qowmiyadda afartay reer Eritrea bay ahaayeen waxay dhahaan ku dalkayga waa Eritrea waxaan ku noqonaynaa Eritrea ku noqonaynaa mana galan Ethiopia Eritrea markaa xorriyad bay qaadatay waa kuwii waddankoogi ay gacanta ku qabsadeen muddo kolkii la joogo bila ah ay ciidamadii dhex joogaan waddanka la dejiyey yoobaki qalaafi agteeda la dejiyey waa la waayey meel jaani carib dhigaan meel ay mareen baa la waayey ciidamadii lagu reebay waddanka gudihiisa oo hubkoogiina laga qaadin waqooyigo dhan bay ku baaheen waxaa dhacay in la yidhaahdo cunte xadhigii ha laga qaado ciidamadii baaraaga ha la isku soo celiyo goladaaba meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii u horreeyey ka dhacay goladaaba waxay ku taallaa dikil secteerka dikil weyn waa maalinta la ogaaday jabhad furuud la yidhaahda inay jirto waayo waxay soo qabteen hogaamiyihii raggaa watay iyo ciidamadii baaraaga soo qabteen oo cunta hogaaminayay ilaahay ha u naxariisto waxaa la soo qabtay dookimayaal ay ku qoran yahay magaca furuud halkaasaa lagu ogaaday jabhad furuud la yidhaahda inay jirto dagaal weyn markaa ma dhicin waxoogaa waa la nastay haddana waa la ilaaway September bay ahayd November ayaa ahayd wuxuu dagaalkii qarxay noorka furuudku waddanka wada jabadii furuudka ay waddanka wada galeen raas dumeera ciidamadii joogay lagu odoomiyey milixle lagu odoomiyey xilda la weeraray canteenkii lagacasa la weeraray casageelo la weeraray casageelo ciidankii joogay la qabsaday la weeraray canteenka waxay isdifaacaan raggii u gurmeynayna dhexda canteenkii buurta dhay ku yaalay iyadoo loo gurmanayo raggii tajoora ka baxayna ambiiskaadka dhexda loogu dhigay ragga ambiiskaadka dhexda loogu dhigay habeenka ambiiskaadka loo dhigi doono habeenkii ka horreeyey waxay joogeen qayb kamidii galiilay joogeen oo raggii la kala daadiyey bay ahaan oo weli la isku soo ururin waxaa hogaaminaya ragga allah u raxme hayay ciidamada qalabka sida kamid ahaa chef ahaa nin commandos ahaa oo Sulaymaan la odhanayay faaraxa waan kaa dhex galaynaade ambushkaad dadka gaar Soomaaliya ugu sheeg inay jidgooyo tahay jidgooya loo dhigay jidgooya loo dhigay ciidamadii joogay galiile chef Sulaymaan
nin caanka ah ayuu ahaa ciidamada qalabka sida dalkeena instructor commando ah magaciisu xorriyo ku magac dheeraa galiile ayuu joogay oo raggii la qaybiyey ayuu ku jiray waqtigaana muddo kooban baraaga dhex joogay raggii galiile qaybta lagu tuuray ayuu ku jiray uu soo dhaadhacay buu yidhi commanda cute waqtigaas kabtan cute allah naxariistay waqtigaa kabtan buu ahaa soo dhaadhaceen markii ay baxeen isaga iyo section troisième section commandos la odhanayay oo baraaga ahaa waxay ka baxeen Djibouti waxay tageen Tajora muddo yar markay joogeen waxa dhacay dagaalkii baa dhacay ay soo qaadeen furuudka waqooyiga dalka ku soo qaadeen iyagoo Tajora ka baxay oo u gurmanaya randa u gurmanaya day anteeki day ku yaala u gurmanaya ayaa randa loogu dhigay ambiskaad amba jidgooyo ciidamada waxa watay Allahu naxariiso waa dhintay kabitaan caduwi ninkii loo oranayay yaa watay raggaasi way dagaalameen meesha loogu dhigay jidgooyadana waa meel 10 nin oo qurahatay haday u galaan ay guutadan dhamayn karaan way dhamayn karaan 10 nin oo qurahatay afarta koona ka joogsata waa dhul meel laami meel loo dhaadhac lahayn labada koona jar ka xigo sida weecada waa sax waan arkay meeshaasi anigu aduu markaas ciidanka misaga watan halkaas su'aal baan ka weydiinayaa aduu ciidanka halka marka jidgooha lagu sameeyay meesha anigu waan tagay waan arkay meeshaasi manikaas watay ciidanka marka misanika kala watay Suleymaan aad sheegaysa لا سليمان شاف بها عدونا كابتن بوها سليمان عدوي با وتعينا ماذا عدوي علي سبناء كولونيل علي سبناء إما كبختي يصون كابتن علي سبناء جوجي تجوراء يسمر رجع سمر مجوجي خلاص سمر وحده جوجي براغوها سو سمر رجع ما رجع عدو لا صعد سمر ما كجري مركز kuma jirin ragii Djibouti joogaha adii marka samir marka ragii meelaha kale lagu kala daadiyo waxa ma ras dumeeray inuu joogay laakiin akhirtaanka Djibouti ku soo noqon doonaa samir kuma jirin sheekh xorriyo leeyahay ayaa watay ciidamada xagga baraaga ciidanka kale waxa hogaaminay dhamaantan ciidanka batiyoon waxa watay adii baa watay ciidamadii jidgooyada loo dhigay jidgooy markii loo dhigay ragii wax naqan ba ka soo baxay kabitaan Axmed ibn Loliyad Maxamed oo lug ay goysay iyo waxa soo baxay Umar Buux nin loo odhanayo askari ahaa oo Real Sabiix ayaa ka soo baxay ragii intii kale wax dhintay iyo wax la qaatay oo gacanta lagu dhigay baan noqdeen markii 3 cisho ay dagaalamiyeen wuxuu gurmadeen ay waayeen dayna waa la qabsaday maalinta aleertoodu markay dhacday waxay ahayd سنين بارو مالين يا إنا هاي مالي سنينا باراجي عمر بوح ما ريال سبيح بو هامس ريال عرطوا عمر بوح ودينا عسكري ويان كان شيء اسمه عمر بوح كلا وحنو هاي يان سكون ما كورنيلكي ما وكان هاي كوسع عسكري بان ريما سرجال كي عسكري سكمد ما عسكري waa nin dabla weeyaan oo sifiijiga ahaan jiray dagaalkii cadeeto waxay noqotay inuu dagaalka wadanka waqooyiga ku baaho oo u bato oo la soo dul fadhiisto Tajora la kala gooyay magaalooyinkii waaweynaa raastumere ciidan ku go'doonsan yihiin Maxamed Utay Allahu naxariistay baraagii la isku soo urushay magaalada Djibouti laba cisho ayay Istanbul ku ahaayeen isniin buu qaraxu dhacay talaada arbaca khamiis ilaa khamiis waxa inta ku soo diiray 100 nin oo la yiri waragii rabeeleyga ahaa marka muddada ka horeysay dagaalku intuuna qarxin dalkeena ciidamada waxa loo dheeyay inuu adiga lugta ku xanuunaysa oo 10 sano indhaha lama arki doono waxba kama arki doontid ciidamada waa la diray waa la kala daadinay qorshe uu Faransiisku dhigay beena ahayd oo ahaa ciidamadii halka qorshaha Faransiiska hadii aan liid soo dhaxgeliyo waxa jiray shir loo oranayay conference de Bol la yiraahdo la Bol meel la yiraahdo Faransiiska ku taala ayaa wuxuu ka dhacay shir
1989 François Mitterrand oo madaxweynihii dalka Faransiiska ahaa waqtigaa wuxuu Afrikada ugu hanjabay oo uu ku yidhi amarna ku siiyey inay multipartismiga furaan conference nationale la furaan conference nationale Afrika oo dhan buu ka dhacay laba nin baa jiray waqtigaa oo yidhi anagu conference nationale furi mayno xisbiyada badanna waxaan u furaynaa si annakana waafaqsan sharciyadeeda halkan ka qaadan mayno waxaan nooga digteeyay waxa labadaa nin ka mid ahaa ilaahay oo naxariistay aabihii qarankeena alxaaji xasan guleed abdidoon iyo ninkii xukumayay waddanka maali muuse traore looranayay labadaa nin maahin afrikadii kaloo dhan way qaateen waa ninkii maqli jiray conference nationale maxay waxaan kaasoo multipartism wadafa meel kasta Djibouti labadii nin markay diideen muuse traore muddo yar kadib waa la afgabiyey bil iyo laba bilood la soo joogin muuse traore waa la afgabiyey Djibouti waxaa la keenay 90kii raggii afgambiga u joogay Afrikada afgambiga ka shaqeynayay ninka la oranayay General Shouban la oranayay oo joogay Burkina Faso waqtigii Thomas Sankara la dili doono ninkii joogay halkaa iyo safiirkii waqtiga u joogay Burkina Faso dowladda Faransiiska iyo kii Faransiiska u joogay Mali baa Djibouti la isku keenay inaad telefishinada ka daawanayseen mooyaane rag markay telefishinka soo fariistaan iyagoo cadaysan soo galayay telefishinka waxaa laga bedelay ciidamadii Faransiiska ahaa ee Djibouti joogay raggii reer Djibouti ay shaqaaneen oo dhan waa la bedelay waxaa la keenay raggii afgambiyada ka shaqeynayay wadamada Afrikaanka markii laga shaqeynayo iyo magaalada waddanka Djibouti 90kii la keenay 90kii markii dagaalkii uu qarxay dagaalkii baan ku soo noqonaynaa ciidamadii baaraaga oo jooga xaradii Istanbul ku ah maalin salaasa ayaa la yidhi hal la qaado baaraagii ha loo gurmado gartoo weli ciidamadii looma gurman wayna dagaalamayaan ciidamadii day u socday ee tijooro ka baxay cid u gurmatay ma laha ciidankan inay gurmadaan la doonayna waxay ahaayeen ciidamada baaraaga ah baaraagii markii ay tageen iskaal ay sidaa u tageen ayaa la yidhi baaraaga hal cisho waxaa la leeyahay madaxweynaha waxaa loogu sheekeynayaa in haddii cunta uu tago noorka arrintu faraha ka baxayso arrintana ragga wixii dhinta maahna wixii kalena nabad lagu soo celin doono ayna dheereen arrintu utaha laga daayo noorka la leeyahay waa la soo celiyey madaxweynaha sidaas oo loogu sheekeynayaa waa laga soo celiyey baaraagii israa'iil la soo celiyey arbaca la yidhi haddana ha tagaan arbacana waa la soo celiyey khamiis markii ay joogto ee weli la gurmanin galab khamiisa ayuu yidhi ilaahay u naxariistay maxamed cute intuu ciidamadii iskugu yeedhay xeradii baaraaga ayuu yidhi wixii baabuur joogtay hala diyaariyo baabuur wixii loo joogtay hala diyaariyo ciidankii buu la hadlay waan joogay wuxuu yidhi nimankii cafareed ciidamada ku jiray iyuu la hadlay wuxuu yidhi haddii aad u qabtaan in dhulkiinii lagu duulayo waad ka hadhi kartaan dagaalka anigu ka cunto ahaan haddii cali-sabiix maanta lagu haysto ciidan cafar iyo Soomaali ba isku jira cafar iyo ciise waan weerari lahaa waayo kuwa soo weeraray cadowgay weyn kuwa la haystana waa cadowgay waa ciidankayga oo saaxiibkayga oo ka weyn nimankii cafareed waxay dhahan dagaalka waan galaynaa dagaalka waan galaynaa afartii galabnimo markay ahayd maalin khamiisa ayaa yidhi waxaan ka baxaynaa beekaasankaanta baan ka baxaynaa marka amar ee tumadoorka kama haysto waxba kama haysto tumadoorka waxaa jooga rag la shaqeynaya waxa meesha ka socday wax weyn baa socday taawareer baa ka taagan qaar waxay u shaqeynayaan way garan leeyihiin qaarna Faransiiska u shaqeynayaan Faransiiska afgambiga wadaya qaar la shaqeynayaan laakiin qaar jaahilnimadooda iyo waxyaabaha aan u kala soocnayn baa jiro badan oo dhex jooga aan ogeyn objectiveka loo leeyahay meesha objectiveka ay fruitku leeyihiin Faransiisku leeyahay isma waafaqsano oo inay iswaafaqnayn aadar roob la cawaale waxay ka dhaadeen fruitku naga bax aadar roob la cawaale markii uu horeeyay dagaalku qarxay isaga sheegtay inaad ninkii nii dhageystay intii nin maqasho garan maayo isaga maqal halka intaad maaragtay joogto in adu ciidankii uu watay markii afgambi lagu sameeyay jidway loo galay adu ma wuxuu raacay friidkii buu raacay oo raggii jabhadii buu raacay mise dib buu soo noqday
intaas cadowi waa la qabsaday ciidanka la haystay ku jiraa cadowi ciidanka la haystay buu ku jiray cadowi oo marka dambe meel kale hala geeyo amba laakiin ciidamada ay waxba ka soo noqon ayuu ku jiray ayuu watay socohay ciidamadii kolkii uu yidhi waxaan ka baxaynaa beekaasan keentaa oo waxaanu galaynaa ilaa day aan tegayno dagaal baanu galaynaa uu yidhi muddo yar kadib waxaa soo dhacay telegram ah in la geeyo baaraaga magaalada Ubaq madaxweynaha sidaa yidhi maxaa lagu geynayaa tijoorana waxaa loo diray booliis iyo waxyaaba yarsayii lasu dardaray baaraagii waxaa loo geeyey 20 diyaarad madaxweynaha lagu qaaday ma jirto diyaarad kale isasnaayir oo kale qof 20 u qaadaysa la qaaday tijooro Ubaq baa la geeyey 60 askari meelahaas 3 jeer bay kala noqotay 60 askari yaa la qaaday magaaladii Ubaq baa la geeyey ciidamadiina halkaas inuu ciidan amar diido amar cad qaato oo keligood oo halkaas taas ku badbaaday ciidamadii waxay ka baxeen qaarna diyaaradda ku baxeen oo lagu guray 20 loo qaaday qaarna maalintii ku xigtay jimco ahayd ayaa la raray markabkii burhaan cali warkii ayaa la saaray intaasoo ciidamo badan oo meesha lagu soo urushay ciidanka soo gaar leeyay iyo wixii ay qalab qaadi karay markabku waa la raray subax jimca subaxdii jimca markay baxeen maxamed cutee habeenkaa wuxuu seexday allahu naxariisto Ubaq ayuu seexday markabkan subaxda jimca baxaya waxaa la socda siduu u dhan yahay uu buuxaa markabkaa buuxa waxaa la yidhi maxamed cutow magaalada Ubaq ka bax soo qaad ciidankaagana qaado soo qaad ciidamada ku go'doonsan ciidamada milixle iyo ka soo baxay raacaytay ee ku go'doonsan raas dumeera ku go'doonsan soo qaad markabka meel la joogsado ma laha ciidanka Ubaq ka qaada la leeyahayna waa ciidan ilaa 50 askari ah ciidanka halkaa joogina waa 58 askari oo wata 12 gaari oo marka dambe Eritrea gali doona ciidamadii ciidankaaga halkaa shirqool baa socday dareema shirqool baa halkaa socday waxaa la lahaa magaalada marka uu maxamed ka baxo ciidankiisuna uu ka baxo in magaalada la qabsado la rabay maxamed ma diidin amarkaasi uu qaatay inkastoo amarku markii horeba uu dareensanaa inuu wax jiraan uu qaatay amarkii uu qaatay markabkii buu raacay raas dumeero ku dhaqaajiyay 5 galabnimo markay raas dumeero gaadheen badii baa soo caariday raas dumeera ciidankii uma tegi karaan xoorkii meesha xoor yar baa jira xoorkaasi biyuhu hadday ka dhamaadaan markabkii hore ma socon karo maxamed cutee wuxuu la soo xiriiray tomajoorka wuxuu yidhi arrinkaasaa dhacay maxaa sameeyaa arrinkaasaa dhacay lama odhan magaalada kusoo naqay waxaa la yidhi ciidamadii raas dumeero joogsadayna buurtay dul joogaan waa looma tegi karayo badweynta kusoo noqo caawa baddu markay soo aari biyuhu ay soo noqdaan ciidamadaa soo qaad baa laleha soo noqon adoo ciidamadaa keenid okay ciidamadii waa lala hadlay wuxuu yidhi halkaa jooga anuu niima iman karayo habeenkii sagtii dhaxay ula hadlay wuxuu yidhi isdifaaca Eritrea gala anuu niima iman karayo Ubaq baan ku noqonaya amar buu siiyey markabkii wuxuu yidhi Ubaq nagu celi halkaa waxaa ku fashilmay Ubaq maxaa dhacay Ubaq waxaa la og yahay in ciidamadii difaaci lahaa laga qaaday yaa la og yahay maalintaa markuu ciidamadu ay ka baxeen allahu naxariistee waa lala hadlay Ubaq ciidamada waa lala hadlay waxaa la yidhi isdhiiba dawladdu halkan kama talinaysa adeeto waayo markaa waxaa ku cad in ragga gaashaandhigga iyo tomaajoorka joogay ay xidhiir la lahaayeen dadka wadi dagaalka qayb kamid ah xidhiir la lahaa hotee ka bax baa la yidhi Ubaq halkaa ku dhaqaaqso maaha magaaladii askartii baa loo qodbaday waxaa la yidhi hubka saaxiib baa la iska dhiga
laga waxaad nagu lahayna la siiya nin Axmed Burhaan loo dhanayo tijaarinta ubuqa oo sheel leh iyo ay bari gaarsiiya raggan lacagiyaan ka urursaday bari gaarsiiya buuli lacagiyaan ku lahayn ma ka urursanaynaay magaalada raggii joogay dilayska way dhigeen badankoodu 18 askari baa ku hadhay oo la hadhay nin afar oo labaala aha Haji Xasan loo dhanayay yaanu malaynaa Haji la ku hadhay Haji Maxamed Xasan intii kali way baxeen 19 askari baa ku hadhay 13 nin oo beesha iska soo jeeday 3 noo Samaroona ina Mawel oo suuleedna markaa iyo mid kale ayaa ku hadhay adu dadkii kale Soomaaliyeed xitaa kuwa daaroodahay way raaceen waxa ay dilis ku hadheen good habeenkii halka maalintii halka la joogay leeyahay ubuq isdiiba ciidankii ay utay ciidankii soo ku maqay raastamana markabkii wuxuu u ta ku celi magaalada ubuq amar buu goostay tamadoorku loogay magaaladii ubuq oo la haysto gudaheega oo magaalada waxa haysta ciidanka jabhada haysta xeradase ma ay weerin markaas oo waxay u qabeen inay xeradu cidlo tahay sagaalkii iyo barkii ayay ciidamadii soo gaadheen magaalada ubuq waxay ku daadegeen burhaan meesha la yiraahdo beerta Axmediili ku taala marsada kuma daadin waa marsada jabhada haysatay sagaalkii barkii markay galeen 10kii iyo rasaas bilaabantay 10 habeenimo rasaasii bilaabantay weerar weyn ma dhicin waxa dhacay inay ciidamadii jabhadu ay kidika soo weerareen lagana difaacay xaradii oo qabsan kari waayeen waxa markii hore waxay moodayeen inay xarada cidba joogin guro baana hayso gaba biday waxa ku yahay gura bariha dhulka dhiga dhowr qof baan soo qofkii lagu arbaji lagu qraacana way baxsadeen dib u noqdeen waa kuwa qaadan doona boos jandaranka oo xarada ku dhow ragii joogay ay qaadan doonaan magaalada la gali doonaan ko halka taasi markay dhacday anu markabkan saaranahay ciidamadii subaxdii hore Jabuuti ka soo baxayaan markabkan saaranahay markabka dagaalkii ku dhacay gurmadka ahaa gurmad ciidamadii habeenkii sagtii dhexe ayay soo baxeen wuxuu yiri markabkii anagu wali isku talaabin ciidamadu wali looma talaabin badda marka anagu markabkan taagan wuxuu yiri waa inaan baxnaa rag magaalada jooga labadii habeenimo waa inaan magaalada gaar ka qabanaa meelaha 150 askari yahay gaariyeen magaalada gaar laga qabtay xerada kubadda ayay iskugu wada tageen nimankii dagaalamayeen xerada kubadda joogeen meel kale ma joog magaalada gaar baa laga qabtay waa laga soo saaray shacabkii magaalada ku jiray wixii subaxnimo xerada kubadda la isku saaray xerada kubadda ilaa ku jiraan 400 nin marka xaradii kubadda ragii dilayska wada sitay wuxuu yiri Ote Axmediili baa jooga Allah yarxame wuxuu dadka wadadkeegii wadadkii noo shaqeynayay Axmediili oo inta ku shaqeyso adu qaado yiri inta ku shaqeyso qaado cid walba ha qaadato inta u shaqeysa jamada qof aan ku shaqeynin baa qaadani ilaa 20 qof dadkii qaateen Axmediili 10 buu qaatay in ku dhow waxa soo hadhay 280 nin baa soo hadhay iyaala buu kuwan markaas kuwan iyaala hubkina uu yaala hadda iyaga shacabku baa lagu qancinaya iyo madaxda halka joogta dadka halka jooga lagu qancinaya laakiin hubkina halka inta uu yaala 280 baa la soo qaaday Jabuuti baa loo dhacay fashilkii koku inta leeg markuu dhacay fashilkii caynkaas markuu dhacay tamadoorkii waa la isku buuqay waxa la yiri maxay u taala soo qaado yaa oranaya Ismaaciil Cali baa oranaya wasiirka Shandida maxay u taamar diidu sameeyay inuu raas dumeero joogay caawa seexdo oo ku soo noqon magaalada ubuq maadaama amarka diidaha la soo qaadaa leeyahay yana qalfadii oo waqta taliyaha ciidamada ahaa uu orday xasu guulad buu tagay wuxuu leeyahay magaaladii saaba ka dhacday ninkii magaalada difaac soo qaad baa leeyahay wuxuu yiri kan baa soconaya oo tama soconaya halkiisa joogo Allah yarham fashilka koowaad ee dagaalkaasi halkaas ayuu ku fashilmay halka ku celi wasiirkii gaashaandhiga marka wuxuu ka soo jeeday beesha afartu ka soo jeeday halkiiba marka loo sheego oo jenaqalkii Fathi uu sheego ka yiri
cute oo dhulkii difaacay baa laleeyahay soo celi laleeyahay markaa ka bacdi buu yuu marxuumkii xasan guuleed go'aan ka qaatay miyaa